dagaalada foosha xun oo wax lagu tilmaamo aan sheegi karin oo ka socda gobolada Soomaaliya meelo badan oo beelo Soomaaliyeed dhex maraya Soomaalidu waa dagaalami jirtay hase yeeshee waa foolxumo soo korortay waxa hadda jira dagaaladii hore xataa dagaalka foosha xun muladooxa la dhigi jiray midkaan waa ka sii fog yahay wax lagu sheego lama yaqaan dad la googooyinayo dad la gubayo haddana fili laga duubayo marka waa foolxumo aan weligeed la arkin waana la dagaalaa waana la heshiiyaa laakiin dhaqamada hadda socda kuwa laga heshiinayo ma ahan haday sidaa ku sii socdaan sababtoo ah qofka arka ehelkiisii oo ama la gubay ama la googooyinayo filinka laga duubay oo maalin kasta hor yaalo cuqdadaas weliga calooshiisa kama baxayso marka waxay reebayaan dhaqamada socda taariikh xun iyo hadii alla ku reeyo colaad xun iyo cuqdad xun ayay reebayaan marka waxaan ka digaynaa in hadii alla ku reeyo la joojiyo falalka foosha xun iyo dagaalada dhex maraya beelaha Soomaaliyeed wax laga faa'iidayo male weligeed ayaa la istiriirayay waxna lagama faa'iidin waxa kale oo soo kordhay laba kaas oo dagaashada waxay ku leeyihiin dhulkan leeyahay war dhulkan Ilaahay yaale xaqiiqada markii laga hadlana Soomaalidu dhulkan ma balaba Ilaahay rasuulkiisa kaleey salaatu wasalaam wuxuu yiri dhulkii nooleeyaa iskale qof aan beer falan oo guri ka dhisin oo aan hadii alla wax wanaag oo dhulka u sameeyay aysan jirin muxuu ku leeyahay horta waa yaab marka war dhulkan ma lihiin Ilaahay yaa iska leh hal isnabad geliyo intaas ayaan leenahay waa dulla qabyaaladu waa furq iyo daacun waa cadow difaaciyo dugsi aad ka dhigato ka doo xamaatada waa nacab dadnimadii iyo sharafta kaala diriro ummadaada kugu dira ruuxan dakana iyo dambi adiga ka gelin soo dil kugu yiraahdo dan gumaysileeyo waa dariiqa loo maro ummadii la dumi rabo waa kaan kara duqowdiyo jahli deegta noo suran waa durbaan ibliis oo daacadaad u tahay oo aad ka dabahbalaysaa ummadda ila dirisana nabadda waa u diidaa damiirka waa ka qaadaa diinta waa ka saartaa qaranka waa ka dumisaa calanka waa ka diirtaa aakhirana dabnaariyo jahanabay ku dalaqsin ma dhihi karo dagaalo sokeeye ma dhihi karo waa dagaalo aad u xun oo magac aan ku sheegaba ayna jirin waxaan leenahay war dadka dagaalamaya iyo kuwa gadaal ka riixayow isku dambi baad tihiin Ilaahay baad hortegaysaan waa leedin weydiinayaa birito waxaad ku dirirteen iyo waxaad ku taakulayseen intaba waa leedin weydiinayaa qof walba Ilaahaaga ka baq biri waa lagu weydiinayaa jawaabaad waxaad ku jawaabtid heli maysid dhiig islaameed inaad daadisid ka daadinayo ka ku gacan siinayo isku dambi baad tihiin Ilaahay ka baqa umada hal nabad galiyo oo Ilaahay ka baqa intaas kaana ku dar ka Soomaaliyeed oo dadka falalkaasi ka dhexdhacayaan kamidka ah ama la dhashay bulshada Soomaaliyeed xil wadareed baa jira dhacdooyinka xun waa loo guntadaa waana la gufeeyaa markay dhacaan haddii taas aan la yeelin ee la daawado waa duloobaysaa noloshu ummadda Soomaaliyeed dhacdadaas ama dhacdooyinkaas la soo sheegay oo ugubka ah waxaan ugu baaqayaa inay ka dhiidhiso mudankoodana la mariyo oo xumaantii baa faaftay jawaabtiisii ka wanaagsanayd faafto wax dadkii gartaa kama wabxaan sun iyo waabay waagii baryaba dhiig walaal wagac ma siiyaan wiifto iyo wareentiya xabado kama wayoodaan Soomaaliya Ilaahay aan ka baqno dhacdooyinka noocaana aan u guntanno wadar ahaan aad baa u mahadsantiin Soomaalidu wax walba oo adduunka jira waa dhaqan waxa aan dhaqan lahayn ma jiraan tuugadu xataa dhaqan ay leedahay dagaaladu dhaqan ay leeyihiin yaani wax walba dhaqan ay leeyihiin dhaqanka Soomaalida ee dagaalka kamid ma ahayn muxuu ahaa in qof meeyda la gubo kamid ma ahayn dhaqanka Soomaaliyeed kamid ma ahayn in dad meeyda inta meel la iskor saaro lagu digto oo lagu boodboodo oo film laga qabto kamid ma ahayn dhaqanka Soomaaliyeed sida taariikh yahanada dhamo ay ka warqabaan nin baa col qabtay baa la yiri colkii markay qabtay baa waxa la yiri waa ku dilaynaa inaad idishaan waa xeer buu yiri waxa la yiri waa ku daynaynaa
iyaduna waa xeer buu yidhi sanka iyo labada dhegoodan kaa jaraynaa halii maya taas xeer dhaaf waayu yacni wuxuu ogol yahay in la dilo laakiin xeer kuma jirto in sanka iyo dhagaha laga gooyo kuma jirto xeerka waxaan leenahay waxa dhacay waa xeer dhaaf waa xadgudub waa waxaan ku wanaagsanayn mustaqbalka Soomaalida waa waxaan ku wanaagsanayn sharafka Soomaalida waa waxaan ku wanaagsanayn qabiilka arrintaas sameeyay mustaqbalkooda iyo sharafkooda iyo sumcaddooda waxaan ku fiicnay waa Soomaali waa qabiilooyinka waxa sameeyay way xadgudbeen meel bayna ka dhaceen sharafkoodina way iibsadeen dhig karna waxaan leenahay ha caymiyeen sharafkooda ha caymiyeen muxuu ahaa xeer dhaafka ay sameeyeen oo walaalahooda kale ku sameeyeenna wax aan weli loo arag hawga garbaxan oo ha ku gudeen arrimahaas wax aan weli loo arag oo xeer dhaaf kala ah oo aan loo baranin waa la garto waxa la yiraahdaa waxa weeye ugub iyo karinley waa karinley wixii looga dhaqmi jiraa la yaqaana nima la dilay wixii labada qabiil u dhaxay waa la yaqaanin laakiin nin la gubay xeerkeeda Soomaali horay looguma arag waxa la rabaa wax aan la arag haday dhacaan wax aan la arag in looga dhaqmo oo arinta lagu gudo aad iyo aad u mahadsantihiin ma rabno hadalka inaan badino muxuu ahaa mana qaadi karno muxuu ahaa waxaan rabnaa war kooban oo nuxurkiisu hadalku waa naf iyo abaar la yiri waxaan leenahay Soomaali xadgudub aan intii dagaal sokeeyay jiray aan dhicin baa dhacay arinta si la yaqaano hal looga muxuu ahaa dadka sameeyay raali gelin uga bixiyeen aad iyo aad u mahadsantihiin